الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. guddiga maamulka rugta ganacsiga iyo guddiga fulinta warbaahinta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta way bishu tahay 30kii bishii 12aad 2018 maalintii ugu dambeysay aan malaynayay waxaan go'aansaday shaqaalaha la socodsiiyo xilkii guddoomiyenimo ee rugta ganacsiga aanu hayay sabab aniga ay gaar dartood waxaan go'aansaday inaan iska casilo. guddiga maamulka oo fadhidana marka aan u bandhigay way ka aqbaleen anigu mahadsan kow state sano dhow aan xafiiska xilkiisa guddoomiyenimo hayay 2011 ilaa imanka 3 sano ka horeeyana waxaan ahaa guddoomiye ku xigay 11 sano ama 10 sano iyo xogagaasaan joogay. waxay u muuqatay inaan intii maskaxdeeda aan tuujin karayay ee xafiiskan aan u faa'iideyn karayay aan u faa'iideeyay wixii aan ka gaabin karayay aan ka gaabiyay. sidaa awadeed waxaa la gaaray xilligii cid kale oo halkaan soo gaarsiiyey ka sii qaata xilkii xafiiska uu la wareegi lahaa. waa xilligii ma jiro dad badan baa soo weydiinayay arrinta ilaa maalmahanba waa la maqlayay waxbarasharo ciduu doonaba ha ahaadee igaga yimi oo kalifay inaan xilkan iska casilo. ibnihii sideedaba rugta ganacsigu waxay leedahay guddi guud oo board la yidhaahdo ama guddida maamulka oo raggan fadhiya iyo guddi fulineed iyo xoghaye. anigu waxaan accountable ahay guddoomiyaha xilka u yimada guddida maamulka oo raggan fadhiya. 10 sano karaamo iyo ixtiraam iyo isqadarin ayaan ku wada shaqeynay. xiriirka iyaguna maanta waa maalinta ugu wanaagsanaa. nin yidhaahdo maxaad uga tegaysaa mooyaane nin yidhaahdo niyo waad raagtay dee maxaa goormaad meesha banaynaysaana ma dhicin xasha ma dhicin. xukuumadda rugta ganacsigu waxa weeyaan horjoogaha hantiileyda gaar ahaanida Soomaaliya wuxuu doonaba ha lahaa. waa hay'ad sharciya historia ku fadhida xeerar golayaasha qaranka siiyay saddex waa hay'adaha ugu daaweyn baana ka mid tahay. xukuumadda Soomaaliland iyo ganacsatada waa boriga u dhexeeya. wada shaqeynta xukuumadda aan u leenahayna maanta maalin uu ka wanaagsan yahay ma jirto. bal madaxweynaha imika jooga wuxuu la yimi in waajibaad iyo xilal culus oo hore rugta ganacsiga aan looga codsan jirin inuu ka codsado inaanu ka soo shaqeyno ama uu amray in talada dhaqaale iyo ganacsiga dalka rugta ganacsigu iyo ganacsatadu ay qayb muhiima ku yeeshaan. inta badanna marka la qaadanayo go'aamo khuseeya ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka ma loogu yeedho oo talo naga weydiiyo. wasaaradda ganacsiga oo ah halkaan kaga xidhno xukuumaddu si waxa weeyaan xiriirkeedu waa maanta ugu wanaagsan yahay. isfahamkii ugu wanaagsanaa baa naga dhexeeyay wasiirka iyo shaqaalaha kale wasaaradda. berigii hore muran baa jiri jiray mandate-ka laakiin maanta wax waliba si cad oo isfahana oo muddo lahayd ayuu yahay. sidaa wadeed waxaa keenay hawshan dan iyo duruuf aniga ay gaar
sida xeerka rugta ganacsigu dhigayana haddii guddoomiyuhu geeri ama geedi ama xilgudasho la'aan uu boosishanka ku baneeyo ama xilka ku baneeyo waxaa la wareegaya guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga xilligana waxa weeye Jamaal Caydiid Ibraahim ninka midigteeda fadhiya goobjoogna uu ahaa muddadaa dheeraa soo shaqaynayay ninkii barbar fadhiyay ahaa xogogaalna uu ah baylahda rugta maxaa gaaban maxaa u qabsoomay maxay ka gaabisay maxay tahay inay qabato ayaa by default ama si caadiya ula wareegaya xilka muddadaa aan joogay wixii aan qabtay iyo wixii aan ka gaabiyeyba raggii aan u shaqaynayana accountable-kana u ahaa matalayey magacooda ku shaqaynaya waa ragga fadhiya way ogyihin sidaa awoodeed wakti badan ku bixin maayo waayo haddaan wax qabtayna iyagaan u qabtay haddaan wax ka gaabiyeyna iyagaa ka gaabiyey waxaase tusaale noqon kara dee 3 qolo ku yaala hay-adda shaqaale dhexdooda oon ugu jiray toobal caare oo hay-adda shaqaalo lahayd ayaa la wareegay maantana xaruntana wareejinaya xiriir dabadeed rugta ganacsiga rogaha caalamka kor baan u qaadnay ganacsatada iyo kusoo xidhanka xafiidkooda kor baan u qaadnay gobollada ganacsatada jooga xarunta isku soo xidhkoodana wax weyn baan ka qaban maadaama ragga meesha joogay dee ahtan khusisay xogaaliyiin arrintaasna intaas ayaa ku dhaafay mahadnaq waxaan mahadnaqay ilaahi subxaanahu watacaala muddadaas aan xilka joogay waa asturay xilkii la yigmaday maanta aan ka tegayo iyadoo laygu canaananahayn kunana ceebaysnayn iyadoo layguna canaananahayn kunana ceebaysnayn maanta xilka wareejinayo waxaa kaloon u mahadnaqayaa si gaar ahaaneed guddidii fulinta raggii muxuu ahaa dee day to day aan wada shaqaynaynay iyo kalsoonidii ay siiyeen iyo isbarbartaagay siiyeen markaan uga baahdo waxaan xurmo iyo ixtiraam u hayaa guddida maamulka oo ahayd cidda dee xilka iga casili karta siday ugu magacaabeen sida maaragtay kalsoonida le ay maaragtay ugu ixtiraameen inaan hawshaas sidii aniga ay ugu muuqatay inay saxtay aan u wado haddaan tala soo jeediyana ay igu raaciyeen aad baan ugu mahadnaqay muddadaa joogay waxaa noo suuro gashay inaanu xilka daadajinno oo gobollada ganacsatada jooga aanu ka samayno guddiyo ganacsato oo le mandate-ka guddadanu leedahay oo hor gobola oonay u baahan mar walba inay usoo jarmaadaan ama ay hawlo yaryar ay qabsan karayaan u yimaadaan xarunta ay diiwaangelinta tahay hadday wixii dantooda oo dhan annagana ogeysiin iyo wada socod iyo wada shaqeyn ay naga dhexaysay waxaan si gaar ahaaneed ugu mahadnaqayaa guddiyada gobollada togdheer saaxil iyo gabiil sida magaalo ganacsiyeedka wajaale saddexdaa guddi oo si aad u active oo mararka qaarkood ka horumarsan si anagu u shaqayno u shaqeeya xil badan oo annaga nasaaraana qabta wada shaqayn dhow oo toos ilaa aniga qof ahaan ay naga dhexaysay sida ay la shaqeeyeen iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waxaan kusoo gabagabeynayaa kelmadeedii mahadnaqayga warbaahinta oo muxuu ahaa dhalinyarana waa u badantii waana badantiin haddana runtii ay yarayd ama se aanan xasuusanba in muxuu ahaa sawir xun ama waxaan jirin ka samaysa runta ganacsiga markaan u baahanana si wanaagsan noogu imanayay noola shaqaynayay arwooyinkaanu qabanaynay shirarkaanu qabsanaynay dhacdooyinkii kala jirayay aad iyo aad baan iyaguna sidii dhagaha nuureed markaanu yeedhna ay noogu imanayeen sawirka wanaagsanna ay uga bixinayaan runta ganacsiga waxaana kelmaddeydii ku gabagabeynayaa waxaan is leeyahay reer somaliland tusaalaha u noqoto sideedabana nolosha qofku xil bulsho ama qaran uu hayo
waxay ku fiican tahay iyadoo la jecel yahay inuu ka tago si loo xasuusto waayo qofku marka wuxuu tagaa laba baa la yidhaahdaa wallahi ninkaas oo hawshaas si wanaagsan buu hayay maxaa dedejiyey iyo war weyn ugu raagay hayna dhaafo marka waxaan door biday iyadoo raggan wanaag ugu xusayaan intaan wada shaqeynay wanaag ugu xusayaan inaan dantayda gaar ahaaneed u gacan banaanaado xilkiina aan maaragtay maanta kusoo ekeeyo kuna wareejiyo gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee rugta ganacsiga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu